kulankan oo ahaa mid looga hadlayay arrimaha ammaanka xaafadda Islii oo ka soo qayb galay wasiirka difaaca dalka Kenya mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalka guddiga ganacsatada xaafadda Islii wax garad odayaal dhaqameed dhalinyaro xaafadda ka soo jeeday ee dadweynaha aad u fara badan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi kulanka oo saxaafadu dibad joog ka ahayd isla markaana muddo ay wada garfeynayeen guddiga ganacsatada dadweynaha iyo waliba waftiga uu hogaaminayo wasiirka iyo waliba mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalkani Kenya ayaa markii uu soo gabagabooba waxa saxaafada la hadlay xildhibaan aadan barre ducaale oo laga soo doortay deegaanka Dhuujis ee magaalada Gaarisa iyo xildhibaanad Safiya Cabdinuur oo qaab magacaaba ku soo gashay mudanayaasha baarlamaanka dalkani Kenya waxaana iyagoo munaasabada ka hadlayay tilmaameen sida ay uga xun yihiin xaafadda Islii xaaladaha ka socda iyo ciidamada booliiska oo dhawaanahan howlgallo culus ka waday xaafadda Islii ee degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxaan ogaanaa wadankan 21% dhul ahaan annaka iskale marka annaka iyo qolooyinka kale wadankan waan isla leenahay horta booliiskii Soomaalida gumaadi jiray sanadii hore iyo booliiska maanta jooga isku mid maaho eega joogan Westlands eega joogan Kileleshwa eega joogan Karen dadka ma gumaadaan markay Islii tagaan maxay dadka u gumaadaan waxa way dadkeeni baa liita qalbiga ka liidatiin حقيني وما دغاليسين حقيني وحورمرسن لعق adigoo sharci qabto oo sharciyeysan oo wadankan canshuur bixiso yaa markaan din booliis aragto yaad xoolahaada ku dihuri marka ma ogolaan karno askari meel loo diray oo security dadka inuu ilaaliyo ah inuu ma aragta ganacsato asaga uu noqdo uu dadka lacag ka qaato mise uu dhibo mise gabdhaha guryaha intuu ugu tagaan dahabka iyo dharka ka furtaan ma ogolaanayno diyaarna uma nihin sidoo kale waxa goobta ka hadlay xubno kamid ah guddiga ganacsatada xaafadda Islii oo ugu horeeyo Cabdullaahi Maxamed Cali oo kamid ah guddiga ganacsatada iyo Sheekh Maxamed Ibrahim Shakuul oo isla kamid ah ganacsatada xaafadda isu soo duuduub waxa aanu isla soo marnayba xaaladdu waxay taagan tahay maanta waxaan rajaynaynaa inay dawladdu oo socotaa timaado xaafadda isbedel la sameeyo waxyaabaha isbedel laga sameeyo waxa qayb ka ah oo aan rajaynayno arrimahan sharciyada iyo dadkan baabuurta lagu harasti gareynayo ee lagu la qasbay ninkii ama sharci wata ama sharci wadanin marka rajadu runtii aad bay u fiican tahay waadna u jeedaa waxa damuuqda wasiirka difaaca iyo xildhibaanadii Soomaaliyeed inay taagan yihiin dhinaca kalena dawladii waxaan rajo badan ka qabnaa inay isbedel degdeg imaanayo insha Allah laaluushka tirada badan qofka alientiga haysta waa inuu laaluush bixinin waa in uu la soo xiriiro ganacsatada odayaasheeda waa laga daba tagi waa la soo deyn nin alienti haysta ma la qaban karo booliska waa la hadlay waxay cadeeyeen baaritaan inay ku sameeyaan baaritaankaana isagoo banaanka jooga lagu sameeyaa hatta haday ka shakiyaan ma jiro wax mandate oo la leeyahay hal aada Islii oo waxa laga soo qabto waxaan u aragnaa inay tahay waxaan sharci ahayn waxa socda waxaan rabnaa insha Allah ta'ala aan ugu appeal gareynaynaa madaxdeena noo timid maaragtay yeeritaanka naga aqbashay arinta inay degdeg wax uga qabtaan ugu dambayna wasiirka difaaca dalka Kenya mudane Yuusuf Xaaji ayaa dadka kula dardaarmay in ay joojiyaan lacagaha sida sharci darrada ay ku siinayaan ciidamada booliiska iyo kuwa ammaanka ka shaqeeya wixii dhibaato ama lid ku ah ay u soo gudbiyaan laamaha ammaanka ayaguna ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalkooda oo booliiska waa dad shakhsi ah in Soomaali suuji waxa lagu dhahayaa blanket accusation meel laga ma bixisnaa dadka wax sameeyay mid iyo laba laha aadama nambarkooda hadii la helo ama magacyahooda la helo oo nimanka maxkamad la soo joojiyo maanta kuwa kale way baqayeen oo arintaas si toomar dambe ugu noqonayno laakiin lacag ala bixinaa wala iska dayna ninkan uu iska tagaa Xasan Kaafi Maxamed Xalane telefishinka caalamiga ee Hong Cable TV magaalada Nairobi